saxaafadu waxay xor u tahay dawladda intay iska daayaan meelaha oo waxaan micnaha lahayn iyo beenta laakiin waxay u fasaxan yihiin inay toosh ku ifiyaan qofka tuugga ee dawladda ku jira shaqadoodu waa midaas waa in toosh lagu ifiyaa waa in la yidhaahdo wuu xaday laakiin waxaa la sheegaya waa inuu sax yahay laakiin intee asaga laaluush la weydiisto markuu diido in deedna been taasi waa propaganda kale waay waa bisbaaro waay waxyaabaha dhibaatada keenay ka mid tahay meel walba inagaga jiraan waan ku caayi waan ku dhibi been baan kaa sheegi haddii kale lacag sii waa la isku toorjeer garayaa wax jira waay soo ma jirto waxaas waa jiraan saxaafadii hadduu inaga soo gashay isbaaro iyo tuugnimo iyo musuqmaasuq yaa ilaalinaya marka nasaahadii iyo sharaftii yaa ilaalinaya saxafigu waa inuu nadiif yahay oo deedna waxa uu sheegaya sax tahay si uu tuugada u ilaaliyo leanna waxaa la dhahaa waa suldada afraad ee ay bulshadu leedahay awoodda afraad ee bulshadu leedahay waa saxaafadda waxaa xor looga dhigay oo xuquuqda faraha badan loo siiyey oo adduunyadu ay leedahay yaan la taaban oo xuquuqul insaanka hay-adda ugu muhiimsan looga dhigay oo dhinac kasta looga istaagay waxaa weeye rajo laga qabo inay iyagu nadiif yihiin kadibna dee wixii biyihii daahir ah wax daahiriye laakiin asagiiba hadduu isbaaro u taallo oo uu leeyahay waan ku caayayaa oo haddaan kusoo dhigdhiga adoo nooc kale ah haddii kale lacag sii this waxaa waaye waa rabash iyana waa taal aad u daran waaye waa dhibaatadana haysatay ka mid dhibaatooyinkana haysatay ka mid tahay marka aan dhinac walba iska toosino saxaafaddeenu ha toosto ha iska hagaajiso waxaas doorkeeda hay qabsato doorkeedu waxaa waaye inay waxa xun isha ay ku ifiso tooshka oo bulshada tusto oo dhahdo waxan wuu xun yahay waxa fiicanna ay toosh ku ifiso oo dhahdo waxan wuu fiican yahay dawskooda waa taa al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar waay marka la isku soo duuduubo marka roolkooda ay leeyihiin waa roolkaas waa muhiim saxaafadeenu inay shaqeyso maxaa jira haddii aynan ururada bulshada oo saxaafadu kow ka tahay aynan la dagaalamin musuqmaasuqa dawladda keligeed waxaa laga yaabaa inay ku adkaato qofka tuugga difaacaya waa inay dhahaan hebel tuug buu difaacayaa waa inay ku shidaan wasiirku hadduu xaday waa inay dhahaan wasiirka waxbuu xaday maaka halkan uu mariyey intuu mariyey prime minister hadduu xado waa in la yidhaha prime minister waxbuu xaday isagaa inta mariyey laakiin waxaa la sheegayaa mar walba waan kusoo celinayaa waa inuu yahay wax saxa inuu yahay rabaa ururada bulshada hadday wax khaldaan waa la yidhahda waa la khalday halkanaa la mariyey marka waxaan rabnaa bulsho kulligeed wada xisaabtamaysa oo si saxa u hadlaysa inaan noqono